السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la yaabka dunida oo aad kala socotaan Oxono TV. fadlan subscribe and share and comment. waxaad dhacdooyinka caalamka ama adduunka ugu waaweyn oo soo dhacaya ayaa waxay sheegayaan la yaabka dunida haweeney lamaanaheeda nolosha u doortay go'ay in muddo ah dhaxanta ka huwaneysay. waa muuqaal aad u xiiso badan. haweeney degan magaalada Devon ee dalka Ingiriiska ayaa goosatay in ay meherkeeda ku xirato go'ay aad u jeceshahay. waa sida ay qortay jariirada Metro ee dalka Ingiriiska ka soo baxda. haweeneydan oo la yiraahdo Pascal Selig oo 49 jir ah ayaa sheegtay in go'aani uu aad ugu dhow yahay qalbigeeda markastana uu la jiray xiliyadeedii farxadda iyo waqtigeeda murugada. waxay tiri aad ayaan u jecelahay waxaana doonayaa in ay dadku xaadir noqdaan oo ay indhahoodii ku daawadaan marka uu meherku igu dhacayo. waxaana ka helaa raaxo qalbigeygana waxa uu geliyaa farxad. waxaa qorshaysan in guurka uu dhaco February 10 soo aadan. waxay u soo xiran doontaa arooskeeda xafladda dharka iyo kabaha hurdada. waa aroos aad u yaab badan. waxay leedahay arooskeyga waxaa loo soo xiran doonaa xaafadda dharka iyo kabaha hurdada. waa aroos weli aan hore u arkin. sidoo kale waxay dhahday dadkii ay xafladda ku casuuntay waxay kula talisay in ay xafladda ku yimaadaan sandal iyo dharka hurdada. haweeneydan xaalado la mid ah ayaa horey loo diiwaangeliyay oo dunida ugu dhacay. haweeney u dhalatay dalka Sweden oo la yiraahdo Berlina Moya ayaa guursatay derbiga caanka ah ee Berlin Wall. sidaas oo kale haweeney reer Mareykan ah oo la yiraahdo Erik Levy ayaa 2007 ama 2007 guursatay oo meherkeedu lagu xiray taalada caanka ah ee Eiffel Tower. afiyad uu kamid ahaa dadka degan San Diego, California ayaa sheegtay in uu guursaday bosteejo tareen oo loo yaqaano Santi. sida lagu sheegay daraasad ay faafisay jariirada Electronic Journal of Human Sexuality ayaa lagu ogaaday in kala bar dadka caashaqa waxyaabaha adkaha ee aan nafta lahayn ayaa qaba cudurka autism. gabadhan aadka ula yaabka badan oo magaceeda la yiraahdo Pascal Selig waa gabar 49 jir ah. waa gabar oo aad looga yaabo dunida ama dhacdooyinka caalamka lala yaabo kamid ah. horey waxa u soo aragnay dad guursada bosteejo iyo dad guursad taalo. sidoo kale waxaan arkaynaa cawada gabar guursatay go'eeda oo hadda u jeedaa inay hubsan tahay. waa gabar 49 jir ah weli aan guursan. wixii ku soo kordhay dhacdooyinkan dib ayaad ka maqli doontiin. waxaan idinkaga tegaynaa Oxono TV. subscribe, like and share intaba hala saaro. aad baad u mahadsantihiin taageerayaasha ku xiran Oxono TV. waxayna leenahay habeenka idin wacnaado.